ayaanta iyo iida wanaagsan alla maanta ayaanta iyo iida wanaagsan ilaahayna siiyey isagaa ku abaale ilaahayna siiyey isagaa ku abaale السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وين سلامة أصحابته ميل والبادونك أكتشوكتين عيد مبارك كل عام وأنتم بخير وحين الله نهاي مالين كلا يوم مضل كلا يو ميل كلا بانو شوقنا أدي أدب أمها سنتهين أصحابتك وحران شانل كبلو أوفيشيال waxaan joognaa maanta hadii ilaahaydinkeeda leeyahay gaalkacyo magaaladii goobta waliba galmudug aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan imaado gaalkacyo galmudug Soomaali State aad iyo aad maalinkii labaad oo ciid way maalinkii koowaad ima suurta gelinin safar baan soo ahaa inaan ka qayb galo ciid ama la qaybsado walaalahayga ciida waa maalinkii labaad aad iyo aad baan ugu faraxsanahay wali ciid way socotaa aad weyn maanta waxa ila socda dhaashane maxamed dhaashane oo walaalkay ah dhammaanteena ilmahaygiiba ila socda kolle familkii oo buuxa baarki doontiin maashay maantay iyo reer gaalkacyoodku sida u iidaan goobahay ku iidaan iyo qaabkay u iidaanba insha Allah hadii ilaahay idmo haliilo maxalad haliilo ciid mubaarak dhammaan asxaabta ku ya wax kale u sheeg maanta waa maalin farxadeed aad baa u faraxsanahay waxa joognaa global gaalkacyada cusub insha Allah aad weyn gaalkacyo dad badan baa maaragtay waxay u haystaan in maaragtay waxba lahayn goobo lagu ciiday ay salahayn magaaladu gaalkacyo waxay leedahay waa magaalo madax waa gobolka mudug madaxdeeda gaar ahaan maanta waxaan joognaa galmudug aad iyo aad baan ugu faraxsanahay bal nala socdo sida qaabka loo ciiday iyo sida anagu u ciidayno iyo dadka ra'yigoodana dhageysan doonaa insha Allah hadii ilaahay farxadiisa la qaysan doonaa insha Allah hadii ilaahay maanta ayaanta iyo iida wanaagsan alla maanta ayaanta iyo iida wanaagsan ilaahayna siiyey isagaa ku abaale ilaahayna siiyey isagaa ku abaale aad iyo aad baa u mahadsantiin ilmaada real wali waxa ku guda jirnaa ciid mubaarak mar kale waxaan la joognaa maamulaha global golden anigu de ingiriiska isma fiicnin garden maxaa laga wadaa global garden yani garden waa meel jardiina oo cagaaran oo lagu raaxaysto ilmaha ay ku ciyaaraan ama dadka waaweyn ay ku nastaan halkan waa qaybta ciyaalka qayb kale jirta oo dadka waaweyn ah qaybtan waa qaybta ciyaalka waxa loogu talagalay in ciyaalku ay ku ciyaaraan runtii meeshan waxay asal u tahay ama astaan ay u tahay isku socodka magaalada gaalkacyo iyo nabadda taala waxaan ugu talagalnay in dadku isku furmaan gaalkacyo waxaan leenahay way hormartay meeshan oo kale hadii laga furay
waa soo dhaweynaynaa dadka ciid wanaagsan mar kale iyo mar saddexaadba ciid wanaagsan aad u weyn markaa aragtiin gaalkacyo oo dadku sawir ay ka haystaan aragtiin calanka galmudug iyo calanka Puntland oo isku meel ka lusha aad iyo aad bay ugu farxayaan gaalkacyo waa nabad baan leeyahay ilma adeerayaal waxa hadii qoqobada iyo balaayada iyo qalan cagaaran iyo waxaas ma jiraan gaalkacyo waa nabad gadigaas iyo gadigaanba waa isku mid aad iyo aad see in kugu suurta gashay goobtaan aadka u weyn anigu markaan soo galay waxaan isiri kol meel kala gashay runtii meeshan waxaa suuro geliyay ganacsato iyo milkiilayaal ka soo jeeda dadka Soomaaliyeed ma dhahayo galmudug ama Puntland meeshan waxay soo martay marxalado kala duwan maanta waxay taagan tahay marxalad ay ciyaalka ku raaxaystaan ku ciyaaraan farxad ku dareemaan farxadaasna waa wixii dhan oo loo fulay oo loo halkaan loogu talagalay in ay ciyaalku ku dareemaan ama waalidiintu ay ilmahooda ku ciyaarsiiyaan ama ay refreshment ku qaataan marka maanta waxaan leenahay waxa taaganahay waqtigii ciidda waxaan leenahay qof kastoo halkaan soo galay qof kastoo Soomaaliyeed ee gaalkacyo ku nool ee dunida daafeeda ku nool ciid wanaagsan see u aragtaa Bulo Official oo gaalkacyo joogta iyo channelkeeda oo waraysiga ka bixinaysa Bulo Official waa channel kala kacsan waxaan leenahay dadka subscribe ku caawiya soo saara waan ku faraxsanahay in Bulo Channel nagu soo booqato maanta goobteeni shaqada goobteeni ciyaalkan ku ciyaarsiinay goobtii loogu talagalay in lagu damaashaado lagu dalxiiso waa soo dhaweynayna Bulo Channel ciid mubaarak mar saddexaad hadii ilaahay idinkeeda leeyahay maantana waxa weeye waxaan ugu xigay dhalinyaradii magaalada oo ciida awgeed aan kaga faa'iideysanayno goobtan iyo goobo kale oo ka sii qurxoonba waxaan nala jooga wiil ka mid ah dhalinyarada gaalkacyo hayo soo dhaw waa dhawahay Bulo aad iyo aad baan u maasantahay soo booqatay aad baan kaaga mahad celinaa marka mar labaad iyo mar saddexaad wax kulay soo dhawaado anigu wax ka mid ah dhalinyarada Puntland waana soo dhaweynaysaa aad iyo aad baashi magaaladeeni waliba dhanka waxaan kaga isku soo dhaweynayaa Puntland galmudug ku soo dhaweynaa anoo reer Puntland marka taas waxay cadeynaysaa say bulshada isku dhex gashay sida nabadda iyo heerkii ka gaadhay gobolka mudug marka soo dhawaala mar labaad mudug ma kala laha meelna mudug waa mudug waxa weeye haddaan xagga kan garow ka imaano halkan baan joogaynaa haddii aan ka imaano bindiirale xaggan tagaynaa meel saasaan iskugu dhex darsanaa haddii ilaahay idinkeeda leeyahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dhalinyaradii Puntland oo inay halkan joogaan kuwii galmudugna xagga ay tagaan farxad weyn bay ii tahay waxaan ku leeyahay ciid mubaarak waxaan dhihi lahayd Bulo Official waxaan leeyahay كلي هري وصعتها سيتي لابسان كلها ولا شكرا الله ما انت عيانت iyo iida wanaagsan الله ما انت عيانت iyo iida wanaagsan ilaahina siiyay isaga ku abaale ilaahina siiyay isaga ku abaale mar kale aan ku soo noqday wali ciideeni baa ku guda jirnaa maanta waxa ila jooga legend of legend Chante Ahmed hadii ilaahay idinkeeda leeyahay waa Chante iyo Ahmed waa isku magacyaal kale baa soo wada hadii ilaahay idinkeeda leeyahay waxaan la yaabay waxa intaas oo magac kuugu boobeen reerkaaga hadii Chante iyo Ahmed magac kale jira carshay waxa weeye magaci kale waxa weeye عمله aad baan salaamiyaa channel kan Bulo Official waxaan ahaa qofkii ama dadkii ugu horeeyay asaaskeedii dibadda u taagay waxaan ahaa ninkii halkan ilaa mar dhaweyto keenay jira halkan keenay weeye alxamdulillah ilaahay ma hadskale Bulo ku soo dhaweynaa magaaladaadii oo ku soo laabatay waxaan leeyahay Bulo sidii hore ma xagee keenta cadaantan waxa weeye in adeer doono fiitadu waa iska taala hadii ilaahay idinkeeda leeyahay maya de waxa weeye
hadalka haddii lagugu qabsaday horaa laga sii wada doona fiitadii baan weli wadaa hawsheedii baan ku jiraa mar kale anigoo janta ka bixinin waxaan rabaa inaan ninkan aad garabkayga uga jeedin noloshiisii kama soo muuqan channelkayga laakiin waxa weeye qofka ugu badan iyo muhiimadda ugu badan iyo jadwalka ugu badan iyo fikradda ugu badan channelkan ka soo bixiyay wuxuu ahaa duube qaabeeye fikrada keene aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa dhowr marna waa iga maqasheen janta ma aha qof walaal aan nahay saaxiibna aan nahay kaliya wax walba oo channelkan u yahay iyo wax walba aniga ahaba ilaahay ka sokow asaga unba maaragtay mas'uulka ahaa aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa mar kale aad baan ugu faraxsanahay maanta intaasoo qof oo joogta waxaan dalbaday inaad sawir la gashid maanta wallaahi wax farxad weyn bay ii tahay maantay sababtoo ah markii aan bilaaweynay channelkan aan bilaaweynay isma dhahaynin hal heerkan baa gaaraysaan ama macnaha heerkan baa gaaraysaanoo bullaa waxay noqonaysaa qof caana sababtoo anigu waxaan ka rabnay iskaga falaadayna madadaalaan ka wadnay ilaahay amarkiis ilaahay qadartiisa waxay noqotay inay noqoto qof bulshada ka dhex muuqda oo ka soo baxay asaageeda ka soo baxday kartideeda iyo dadaalkeeda iyo annaga fikirkeena markaan isku darnay waxaa soo baxday wax qurxoon oo la soo bandhigi karaa soo baxay ilaahay waa ugu mahad celinaynaa bullo waxaan ku gaartay waxaa weeye waa dadaalkaaga garabkaaga haddeertaan nahay awalka horena waan ahayn aad iyo aad welina waa ku garab taaganaa walaashay macaan sawirkana anaa kaa codsaday ma adiga maad codsan aad weyn anaa ka codsaday laakiin wuxuu isleeyahay ceebaynin waxa weeye waxaa garabkayga kala fadhiya Cabaase aad iyo aad baa ugu mahad celinaya Cabaase waa wiil walaalkeen ah waa wiil haddii ilaahay idinka leeyahay cameraman asaguna Cabaase soo dhow aad iyo aad u mahadsantahay bullo waa dhawahay xeelataani markii u horeyso channelka ka soo muuqdeenaysa mar kale inaan ka soo muuqday ila tahaani iyo imaar macnaha waa ku faraxsanahay maanta inaad nala joogtid waa ku soo dhaweynaa magaalada ku soo dhawow dee waa ku xiisna ku leenahay wax kale ku dhaxnoo naqaan Cabaase aad iyo aad baa u mahadsantahay dhalinyarada magaalada ugu firfircoon weeye waxaa kaloo garabkaygaan sii fadhiya dhaashane oo ah wiil anigii la dhashay qof la dhashay weligay ma aragteen هذا وين زلوا ودوه ولا شيء بالله official مر لوادي مر صدحات با magacayga waa si bullo sheegto waa dhaashane adinka ay baro doon insha Allah bullana caydeeda ku soo baxdo video ugu horeysay ay duubtaba caydeeda ahayd video aniga caynaysa ahayd marka arkay sidii caynaysa keep going ba arkay stageka sii saarto video cayno waa clip yar buu ahaa oo kaftara markaas dareentay inay eriyo fiican iyo murtil leedahay haddana ma sha Allah meesha aragtiin bi joogta hambal yaa leeyahay walaashay mar labaad mar saddexaad mid kale iloonay anaga ilaa hadda maan u dabaaldegin boqolkiiba daaray kalkaadna wayna xaflad kale ma dhigaa xafladka holkan ba ku dhigan insha Allah horta hore channelkan haddaan ka sheekeeyo waxyaabihii ugu badnaa uu soo maray waxay ahaayeen waxyaabo aad iyo aad marka qaar markaan arko aad iga qosliya marka qaar inuu taga sheekaysanayna wallaahi waxa waxyaabo aad ugu qosliya wax lagu dadaalay buu ahayn ilaahay hadda iskale mar walba asagu mahad celinaynaa bulo aan kugu hambalyeynaya boqolkii aan ka maqnaa hambaliyadeeda soo laabadkaagana waa ku faraxsanahay boqolkii aan waa ay bahalkeysan insha Allah 200 bunka u duwanaynaa insha Allah aad baan idin salaameynaa maxaa ku daraysaan waxaan leeyahay waxaan ka dambeysay subscribe-ku waa qurux shaarkuna waa sharaf commentiguna waa karaamo like-tuna waa ladnaan